mararka qaar sharka ma laha weji cabsi leh, mana laha indho dhiig leh, mana laha muuqaal ka dhigaya khatar oo aad ka carari karto. mararka qaar sharku wuxuu xidhaa suud, wuxuu leeyahay hadal macaan, wuxuu leeyahay dhoolla caddayn iyo soo jiidasho kalsooni kugu abuuri karta. sheekadan waa mid ku saabsan nin dad badani u arkayeen mid soo jiidasho leh, ixtiraam leh, daacad ah, laakiin dhab ahaantii ahaa mid ka mid ah dilayaasha ugu arxanka daran dalka Maraykanka ee soo mara taariikhda. magaciisu waa Ted Bundy. haddaba Ted Bundy caruurnimadiisii iyo halkii uu ku dhashay haddii aynu soo qaadano, waxa uu ku dhashay magaalo la yidhaahdo Vermont, waxaanu dhashay 1946. aabihiisa dhabta ah lama garanayo si rasmi ah. marka hore waxaa koriyey awowgiis iyo ayeediis. warbixinada qaar ayaa sheegaya in awowgii ahaa nin aad iyo aad iyo aad u rabshad badan, isla markaasna ahaa mid khamriga caba, khamaarkana aad u ciyaara. caruurnimadiisa dib ayuu uga sheekeeyey isagoo ku tilmaamay mid farxad leh, balse cadaymo kale ayaa muujinaya dabeecado dhib badan. sida lagu yaqaan criminal behaviorku, waxa uu lahaa dabeecada ka dhigaya inuu mustaqbalka noqon doono qof khatar badan, waxaana calaamadaha ka mid ahaa. haddaba ninkani waxa uu ahaa nin xayawaanka ay aragtidu ka dhaxayso, isla markaasna kuna raaxaysta inta uu dilayo. sidoo kale waxaa lagu hayay ama uu lahaa diiwaan dambiye yaryar oo aad u tiro badan oo u yaalay criminal recordka ciidanka booliiska. bilowga dilalkiisu waxa ay ku soo beegmeen waqtiyadii 1974. qofkii ugu horreeyey ee uu weeraray waxaa la odhan jiray Karen Sparks, 18 jir bay ahayd. Karen waxa uu si xun uga garaacay madaxa, isla markaasna waxa uu u geystay dhaawac maskaxeed oo aan in badan gaadhin. intaa kadib wuxuu afduubtay Lynna Anna oo uu dilay. intaa kadib waxa uu dilkiisii noqday mid taxanaa, isla markaasna maalinba maalinta ka dambaysa la soo warinayo. waxaana isla waqtiyadaas la waayay ilaa iyo 6 dumar ah. kuna darso oo daawada ninkani waxa uu gaar u beegsan jiray haweenka oo kaliya. inta badan dhibanayaashiisu waxay ahaayeen ardayda jaamacadda la dhigata, hablaha aadka u quruxda badan, habeenkii goor dambe socda, isla markaasna keligood socda. markuu weynaaday wuxuu noqday arday sharciga ku takhasusay. haddaba muuqaalka ninkan oo ahaa mid aad u soo jiidasho badan, isla markaasna ahaa nin siyaasi oo hadal macaan, aadna u xiiseeya arrimaha siyaasadda iyo ka hadalkeeda, dadkuna ay si fudud u aaminaan, aad iyo aad u ahaa nin aftahana, laakiin ay ku hoos qarsanaayeen waxyaabo aan sinaba loo malaysan karin. 1974 ayay wax weliba isbedeleen. kadib markii la waayay hablo yaryar oo tiro badan, waxaa la soo warinaya iyadoo la waayayo mid 2 3. intaas oo keliyana maahe, marka qofka la waayo xataa booliisku ma heli jirin wax yar oo ka mid raadsiisa ama lagu qeexraaci karo. haddaba daawade waxaa isweydiin lahaa ninkani sideebuu wax u dili jiray. qaabka uu wax u dili jiray waxay ahaayeen qaab aad iyo aad u khiyaamo, isla markaasna ah qaab uu qofku si fudud ugu dagmi karo. haddaba ninkani wuxuu iska dhigi jiray inuu yahay nin dhaawacan, wayba dhaawaca ku yaalaan oo yahay dhaawac halisa oo naafo ah. waxa uu mararka qaar ku soo duuban jiray gacantiisa midig ama tiisa bidix bahashan la yiraahdo faashada ee qofka marka uu dhaawacmo dhiigga lagu joojiyo. waxa uu mararka qaar isku kabi jiray nuuradan adag ee qofka lagu kabo marka birta marka qofku uu jabo oo kale. waxa uu soo qaaday jiray 2 birood oo uu ku boodi jiray. waxa kale oo la yaab lahayd inuu iska dhigi jiray qof waayeela. intaa kadib haddaba qofka wuxuu ka codsan jiray inuu caawiyo, waxaana uu wadan jiray gaari. waxa uu odhan jiray walaal caawi. qof marka uu ku soo dhawaado ay inanta ku soo dhawaato, isla markaasna ay istiraahdo caawi, baa wuxuu madaxa kaga dhufan jiray bir culus oo uu sito. qof marka uu dawaqo ama uu waxba kala garan waayo, uu dacona waxa uu saari jiray gaariga. intaa kadibna waxa uu la tegi jiray meel cidla ah. inta badan dhibanayaashu waxa uu geyn jiray meel uu ku dilo, isla markaasna uu ku aaso. 1900
iyo 4 gudaheed in ka badan 6 haween ayaa la waayay 1975 tiradu way sii korodhay. haddaba daawade maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkan la qabtay balse waa baxsaday. 1975 ayaa boolis roonda ah ay si kadis u joojiyeen gaarigiisa. waxaa laga helay katiinado, xadhko, maaskaro, faashash, baangado, waxyaabaha dadka lagu dilo oo tiro badan. ninkan haddaba maalinta waa la xidhay, laakiin ma ahayn ninkani nin si fudud isu dhiiba marnaba. markii la xidhay isaga oo sugaya in la maxkamadeeyo ayaa waxa uu ka soo booday fooq 2 dabaq ahaa, isla markaasna waxa uu ka baxsaday halkaasi. haddaba daawada ninkani sidaa kuma tegin ee haddana mar labaad ayaa la qabtay markay taariikhdu ahayd 1977. haddaba isaga oo ka faa'iideysanaya maalintaas oo ciid ahayd isla markaasna ay askartu sakhraameen ayaa oo si fudud uga baxsaday xabsiga. maalinkaas iyo maalinkii ku xigtay lama ogaanin, waxaana uu ninku ka baxay gobolkii uu markaa joogay, waxaana uu baxsaday gobolka la yiraahdo Florida. haddaba daawadee ninkani markii uu Florida tegay iskama nasan ee isla markiiba waxa uu weeraray meel ay ardaydu isugu timaado ama hool ay ardaydu habeenkii seexato, weliba ardayda hablaha ah. hoolkaas oo lagu magacaabo Shy Omega. 15 daqiiqo gudaheed waxa uu ninkani ku diray 2 haween ah, 3 kalena uu dhaawacay. isla habeenkaas wuxuu weeraray gabadh kale oo ardayd ah. bil kadib wuxuu afduubay gabadh 12 jir ah. tani waxay noqotay falaalkiisii ugu dambeeyay. hadda daawade ugu dambeeyay ninkii waa la qabtay. kadib waxaa la geeyay maxkamad iyo meelaha cilmi nafsiga ah. maxkamadeyntiisi waxay noqotay mid si toos ah looga daawado telefishinada waddanka Mareykanka. wuxuu u muuqday mid aad u kalsooni badan, mararka qaar uu la cadeynayay wax la yaab leh ayaa dhacay. haween badan ayaa u diray waraaqa jacayl ah. mid ka mid ah haweenka maxkamadaha joogay ayuu guur u soo bandhigtay, waana ka aqbashay. xitaa waxay dhaleen gabadh intuu xabsiga ku jiray. maalinkii ugu dambeysay noloshiisa wuxuu qirtay 30, laakiin boolisku waxay kumaysan yihiin in tiradu ka badnaan karto oo ay gaari karto ilaa iyo 50. 24 bishii January sanadkii 1989 waxaa lagu fadhiisiyay kursiga korontada, isla markaasna waa la dilay.